roobab laxaad leh oo ka daay magaalada Hargeysa galinkii dambe ee maanta ayaa sababay khasaare ballaaran oo isugu jira gaadiid ay qaadeen guryo ay dumiyeen goobo ganacsi oo ay la tageen taasoo sababtay in guud ahaanba ganacsiga kala duwan ee magaalada Hargeysa uu xidhmo waxa kale oo roobabkan ay sababeen isku socodka magaalada Hargeysa inuu hakad galo saacado badan iyadoo la joojiyay dhamaanba gaadiidkii iskaga gudbayay xaafadaha magaalada ee ka talaabiyay biriijyada magaalada Hargeysa ilaa hadda lama oga khasaaraha dhabta ee sababeen roobabkani balse dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa ka warbixiyay khasaaraha uu daadkii ka dhashay roobkaasi uu gaarsiiyay dadweynaha wuxuu waxyeeleeyay guryo fara badan oo muxuu ahaayay alaabtii ku jirtay iyo muxuu ahaayay stoodho ayaa halkaasi ku qoyay wuxuu qaaday gaadiid fara badan oo bartan taagnaa dadkii muxuu ahaayay tagaasida ka bixi jirtay dooxan qarkiisa ruuxantii marka aad eegto waad arkaysaa wax kasta oo ganacsi oo suuq ku garab yaalay dooxan uu qaatay haday tahay qaybta farsamada ee jiinka haday tahay dadkii ku ganacsan jiray goobahan oo dhan gabi ahaan ganacsigoodii dooxa ayuu ku daray gaadiidka qaar waad arkaysaa nimanka ka sii jeeda dooxa oo wali aanu dhaadhicin qaar kalena uu dhaadhiciyay runtii waxa weeyaan halka wuxuu ka geystay dhibaato aad iyo aad u fara badan ayaa ka dhacday goobtan istoodhada way buuxaan qaarkood uu qaaday biyuu markay halka marayaan bas shaaq afkeeda aan meel loo dhaqaaqna weyn doodigaas oo darkaysa in halka tilisoonta ilaa deerku halka biyu istaageen biyu way sixireen dhinacna uu dhaqaa wadana uu socon waay meeshii albaabhay halkii way banaysteen biyu sidoo albaabadii meel albaab bay ku galeen dadkina naftooda wax yaacay wax guriyiinta galeen xagga sare furay alaaweenkii xagga sare ma u baxnaa anaguna markii dambe dhibaatada aad u saasaheed biyihii marayay doox biyihii baa halkaa ka soo jabay halkan imika arkaysaa waxay noqotay miskahaygaasay qabatay imika ilaa gurigan laga bilaabiyo wixii xaggaa ka xiga wixii adduunaha yaalay waa mashaqo ganacsato badan oo imika inta xagga naga sii xigtaa oo ilaa liidkaa dooxaa wax hantiyahoo meeshaa yaallo oon xeradii biyin ma jirto halkaasay xoolahaas ugu caasaadeen kolka alxamdulillahi rabbil caalamiin dad hadduu ka nabad galay dee diyo waa laga soo kaban doonaa laba biri intii waddanka joogna birish baynu samaynay kani waa kii talyaani koo sameeyey waddankii dadkii wuu tarmayaa uu badanaya mid iyo saddex iyo afar waxna soo celina maaha Hargeysa wataasa maanta la isu tallaabi maayo halkan biriish baa wax yar ka harsan yihiin dee dadku muxuu markaa uga jeedaa waxa weeyaan wax yarba ku baxaya wax yar ayaa ku kacaya waxaa maanta ay daraa inuu biriishkii waayo caasimaddu xidhnaado oo maxaa ku dhahay meel la mar la waayo wadarta biriishkii xaq hoos ka soo qodmay oo marka wax warsan inuu dhaco harsan wax gaadiyo maraya ma jirto 30 sano waddanku jira hal biriish baynu leenahay biriishkaana dawladda sameysay kana talyaani waa sameeyay waxaanu baahanahay dawladda in gaadiidkii halkaas ku wada xidhayahay wada aragtaan biriishkii kaliya Hargeysa inuu leexleex galay maanta oo baabuurtu la kala joojiyay anagu waxaan u tagay qalax baan u afurtagi jirnay maanta baabuurna ma baxayso qalaxna lama afurtagay magaalada suuqa weyn laga afura marka dawladda hoose waxa sheegayna gaar ahaan dawladda hoose waxaan u sheegaynaa deena birish saddexaad ay bilaabaan ama ay sameeyaan Ismaaciil War Xasan Saab TV Hargeysa